waxaan anigu ku talinayaa intaas dadka Soomaalida siisay aan dhanna ugu eexanayn dhanna ku siisanayn Puntland waxay u baahan tahay iska horimaad dhiig ka baadsiya adigana hayo markan talada hayo waxay u baahan tahay in maxaan ku raadayay aad go'aankii adoo ku mahadsan madaxweynihii baa go'aan la gaari kartaa haddii si aad obstacles aragtay haddii aad aragtay dhibaatada jirta haddii aad aragtay ummadaada dareenkeedii haddii aad aragtay meesha inay ilaha dhaqaalaha tahay haddii aad aragtay in waqti xabad hawlaha jira loo baahanay haddii aad ka xigeliso wixii la soo maray arrintaas inaad dib uga noqotid baan kugula talinayaa asaga doorka odayaasha dhaqanka gaar ahaan isimada Puntland oo ah marjaca marka loo laabto arrimahan markay timaado maxaa markan ku dhacay waxa ku dhacay ismadii horta doorkoodii waxaad moodaa boqolkiiba 60 in lala yahay waa mar horta koowaad dadkii hore oo taariikhda iyo sidii xaaladdu ahayd la socday iyo wixii ay tixgelin jireen oo shaqadii aqoon xambaarsanaa oo muddo dheer ay talinayeen way dhammaadeen wax yar baa markan ka nool doorka kale ku dhacay waxa weeye siyaasiyan baysan u midaysnayn oo maamuladii bay ku milmeen qaarkood bay ku milmeen badankooda maamuladii jiray ku milmeen inta badan marka halkuu doorkiisii xajin lahaa ninkii haddii maamulka lagu milmay maamulka lagu milmay fikrad marka ninkii dhaqan ahaantii ka tegiyey marka maamul fikrad maamul buu tegey taasna waa ku dhacday oo meesha doorkoodii ka saabay kan saddexaad oo ku dhacay iyagii baan midaysnayn oo intay danta iyo dadka danta dalka iyo diinta aanu midowno oo iyo dadkeena aanu midowno oo inagoo wixii saxa aynu meel marino inagoo ilaalinayna sharafteena guud kan diineed kan badeed iyo kan dariseed aynu cidaan la noolnahayba dhammaanba aan ilaalino aan soo celino barasiidkii dadka dhaqanku lahaan jireen aan adkayno si aynu mushkiladii timaada xal ugu helno kuma ay tashanay iyagii marka waxay kala qaybsan yihiin dhibaatooyinka jiray ku qaybsan wax yar baa laga yaabaa inay ka saafin yihiin hadda iyaga waxaan kula talinayaa ilaawa waxa idin dhexeeya ilaawa wixii maamulku milankooda isu ilaawa waxaad hesho waa waxaad xaq u lahayd waddankaad ku lahayd hadaad wax ka hesho waddankaad ku lahayd kuma aadan lahayn qof kuma aadan lahayn waddankaad ku lahayd ilaawa maxaan ku siyaasiyiin ma tihidine ama tartama oo kii siyaasi rabo inuu ha tartamo tartamada hadda ama barlamaanka ha u tartamo ama madaxweynaha ha u tartamo hadduu rabo ama tartankaas ka qayb galo iska dhaqana kan dadka usooda u dhig usoo noqo waxaad u idmanay ciidanka BSF yay ka amar qaataan ciidan ahaan ma Puntland mise Africom oo American ah ciidanka BSF waxay ka qayb amar qaataan Puntland laakiin special status ayay ciidanku leeyihiin oo ay hay-adaasna oo aasaasay kharashkooda bixisana kula shaqeeyaan ciidanka markaa Puntland madaxweynaha iyo ninkii markaas taliyaha ay ka amar qaataan مثلا أنا هذا مثلا تريها جديدة بنت أنا هذا ساعة بنت أنا أمر كمان لك الولد كم يطبعن كي واجب كأنسية هي أمر كأنسية أي كشقين أيام تتوصى أنا مدحينا كحريرين لا أذكر متشرين أو أذكر إيه تدخل شهر نهار إيه ما ملكورة معها وحوي وروح كورا وهي يقصونيين ولا شقيان أنا ولا شقيان إذا كذا يدرسون على هذا بنت لانه ما ممكن ولا شقيان مركا شيء سبيشال أي ليه أريد ليه تحكي أي أموره هذا markii wax ka jiraan waa in la kashi la sameeyo wala maarmaa hadii wax jiraan madaxda in laga fashado hadii wax jiraan hay'adda la soo in la kashi la sameeyo ay jirta ayaan sameyn jirnay
كده واحد ودع هذا أنا نجي هجاني إذا كأود السبلين يعني وقت السنة أي هاي maxay tahay sababaha markaan ay u aqbali la'yihiin digreetada madaxweynaha yaase iyaga doorta markay agaasinkooda la dooranayo waxaa rabaa marka hore haddii sargaal meel jooga la bedelayo sargaalka waxaa lagu bedelaa marka hore inuu xilgudan waa inuu xilkiisii gudan waayo oo xilgudan waa lagu bedelaa warbixin ka timaada kaliyaha ciidanka shacab Puntland oo sargaalka ku soo eedeeyay eedna waa lagu bedelaa positionka uu hayo kaliyaha hay-addu ma aha position siyaasi waa position ciidan haddii waxaa baysu ah ama hay-addii inay eedayso ama isagii xilgudan waa uu la yimaado ama kaliyaha ciidanka uu ka keeno report sargaalkaasi inuu isagoo sababeynaya sababta uu ku eedeynaya qodobo la garan karo inuu ka keeno sargaalka in la bedelo ayaa la rabaa waa inuu wax basic report uu haysto markuu bedelayo isla markaas waxaa loo tixgeliyaa hay-adahan specialka ah oo special force ah iyo intelligence-ga iyo waxaa loo tixgeliyaa muddo dheer wax si badan bay hayaan wax badan bay hayaaneen meesha waana waajibka dowladdana waa lagu fuliyaa waana lagu ilaaliyaa iyaga laftooda waayo arrin riskiya ayay kasoo shaqeeyeen soo simbal ninkii marka nin banaanka u bixi kara ma aha kaasu ka badbaadin mayso haddii uu dembi culus galo oo dembi galo oo hay'adihii eedaynta dembiga ayaa qabsanayo dembigiisa waa lagu qaadaya maaragtay hase yeeshee system loo raacaa jira waxaan soddon sano ama 40 sano ee shaqeeya howlgabka iyo shaqada waa laga yaabaa in isla sugo bay dhici karaysaa mararka qaarkood dowladaha qaarkood innagu afrikaan baana waxyaalaha taxliilintooda ku yartahay laakiin ninkii madaxweynuhu waa inuu basic information ka yimi ama hay-addii ama taliyihii ama waa inuu haystaa واي هذا ما صنع أنا السرقال في هاي بدنوا هي أنا البيب من اللي هذا صار السيمبل أنت لما بدل في الشروط